waxaan idiin sheegayaa gabar wuxuu jiray marmaley dardaar wari birta taabka lay geli hala dilana la yiri ku darsoo ha yeeshee dami waa hankaygii dumi waa ladhkaygii damqan weyda saantii durji iyo xanuun iyo inta daraba lay mari waxaan fiqi u sheegayaa haddaad tuulo yar timaadii haddaad meel kala timaadaba igu sawir maaha waxaan kaloo ugu baaqayaa ciidamada halkaa ku urinayso waxaan la iskeensiiyaa waa diyaar maanta reer Somaliland shacbi rag iyo dumarba maanta waa diyaar inay hubka qaataan wali waxaan fariin ku dirayaa dagaalkii laascaanood ka socday shacbiga reer Somaliland hub may qaadan kun inan oo ciidanka qaranka ah oo laascaanood joogay ayaa isku habar wacday laakiin maanta waxaan idiin sheegayaa reer Somaliland waxay maanta diyaar u yihiin meel kasta oo ay joogaanba inay qarankooda difaacaan maanta waxay noola siman tahay 1988 fiqow waxaad xusuusay baan kuu sheegayaa maanta hadaa aad aragtay kun inan oo gooja cadal ay kula dagaalamayeen 10,000 oo ciidan oo qabiilka ka soo jeeda maanta waxaan kuu sheegayaa shacbigii reer Somaliland bari ilaa galbeed inaan qori qaadanayn nuguma jiro laba kuba xaalayaan laga waay fariin kalena waxaan u dirayaa halkan cidda iska soo horreysiinayso ee waalan waynu ognahay kun iyo 1988kii qolada daaroodku waxay iska soo horreysiin jirtay hawiyaha dee waa iska nasiib maanta hadduu fiqna iska soo horreysiinayo daarood oo dhulbahantaha iska kaale baan ku leenahay adiga inta cag ku qaadataanba iska kaale idin diyaar baan nahay wallahi inaan maanta wax dhulka nagu hooliyay sidaanu ay u dagaalamayaan maanta u dagaalamana run baan kuu sheegayaa quwadaad wadato iyo taamotana way arkayaan haddaad cid soo kaxaysto ama cid baan ku soo kaxaysan haddaad baqataar soo kaxaysato ama F35 baan ku soo kaxaysan taasi waa taa laakiin maanta waxaan ballan kuugu qaaday inaan isu ranahay oo reer Somaliland dhaba maanta isu rantii dad bay barbaraan u ahayd hebel baa laascaanood yimid hebel yimid waxaa doontaba samee laascaanood dalka Somaliland ee la ictiraafay waa dhul ka mid ah dhulna ma guuro khariidaduna ma guurto waa dhulka isticmaalkii waa dhulkii Ingiriisku gumaysan jiray ama barbaraan dhaamha barbaraan waxaan leeyahay fiqi Somaliland ma soo noqonayso Somaliland igu sawir ku soo noqon mayso aga jugleen ku soo noqon mayso lagama yaabo in shacbiga reer Somaliland iyo xukuumadoodu uu hogaaminay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi inay cagaha ku qabsato oo ay ku tugsato lagama yaabo inay dib u soo noqoto madida hargoolo waxay ku tumin durbaanada iyo daasadaha maran ama tukara kaalay ama meesha doonta kaalay Somaliland lagama yaabo inay dib u soo noqoto ma dhacayso adigu sawir kamaradaad kama dhamaan wixii YouTuber xamar joogay maanta waxay joogaan laascaanood waxaad wadataa YouTubers igu sawir baad rabtaa anagu ma rabna igu sawir safaaradaha baan caalamka ka furi doonaa wiiga ka soo socda
waxaan leeyahay fiqi ninkayga aad arkaysaa rag isagoo 13 jira wallaahi dalka ka xoreeyay baan ahaa adiga iyo walaalkaagii sarkaalka haba raggii dalka ka xoreeyay baan ahaa 13 jira الدنيا حالك هابي مع الله وما أنت وعيدك قرن كوفيك عصر السنة هايستان ووحي وقبضنا هايستان ما عيد بنشو تشكرا هذا السياد برشان شو تشكري واي دولتي أدير كابن شو تشكري واي دولتي أويس كيد ويرجع مدافع الرجال يرجع ديارة ودي شري غير كنا هبن شوشون واي الدون كإله هو حنقول شعلنا مال ما فعل كساسا ما لتصو حفلة حلقي لاس عانوت فعل بدن يساوي مشيرين لكن ما أنت فعل بدن باشرة فقه وفريم ما كنت ما أنت فعل بدن باشرة ما أنت فعل كانوا حكينا هذا الكاجا تريسو مال لأن هلا حسوقت يا رضا اللوط البض تبتي أدي أديك هذا مريسا واحد ما أنت لاس عانوت كانت أديك حسو واحد كانت ما أنت سيد الفيلا يو على دير الشلي بيني عند عالدواء يمد روبو مختار روبو وايمد وانا ما نعرف حسادي ودن شالي هو باصور رتي waxa soo reer ninka cabdi madooba la yiraahdo buu hodo ku soo baxay miinooyin iyo qaraxyo laakiin waa la qabtay Soomaaliland gacanta ku dhigtay waxaan leeyahay reer Soomaaliland ka iskuul dhiganaya qalinka waad dhigaysaa qorigaad qaadanaysaa ka wasaarad jooga wasaaradda buuga waad sii dhigaysaa qorigaad qaadanaysaa ballankeenu waa hal mid baynu nahay mowqifkeenu waa hal mid hadafkeenu waa qarannimadeena inaan difaacno inaad maxaa siciido ka hadlaysaa doqon lama waayadee ku yidhaahdo waxaa ka hadlin niyo iska dig adeer blogna weliba qaado intaana hadal kale ku odhan iska digin adeer iska deg qaranku wuxuu u baahan yahay difaac qaran baan lagu difaacayaa awood baan ku difaacaynaa qof kastoo reer Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa maanta ay kibeedi la mid tahay yam iyo qadaad weyn halkaas isku soo urursadeen waa maalintaynu wacdarihii sameyn jirnay janamada duduurta haddaan daadku soo qabin haddaan shaashka darajada dalacaada laga nixin nin kastoo duniga qaba haddaan daabcad la dhicin dakharkiiba 10 noqon nin taleeqsi lagu cunay haddaan guuta loo dilin haddaan meydku daadkii diximaha ka far badan alla ilaha docdaydii ha galma dadweynuhu duqdi ma maqlaysaa away dawladii xamar daratiya kud iyo caad waxaad duma fidisay waxaad haysataa cun daba qura isku geeha ka tagin duruustu rag iskaga dambeeyay isku soo daro kan cirka sare bar soo dimay anaga daweynay waa maalintan sidaa lahayn ay maanta noola mid tahay dhalinyarada reer Soomaaliland waxaa leeyahay nin kasta halka joogto qoriga qaado fartaska xaadir waa ay maanta waxaynu tusaynaa wacdarahan shaqan tusnay wacdarihii afweyna aan ku dhignay ayaan fiqi xasan sheekh maxamed tusaynaa inaan layna daarin oo ficileyna galin baynu tusaynaa ballankeenu waa inuu markaa aadna waan idin salaamaya beeshka sii fogeeya si sheergaraya dhammaan hablaha iyaga nabadeeda qaaliga ama sharaf bayga mudatiin madaxa ay saarantiin